بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaad la wada socotaan falkii fuliynimo ee maanta oo ay taariikhdu ahayd 24 bishii shanaad 2014 abaar 11:20 daqiiqo ka dhacay baarlamaanka oo ay nabadiidku ku weerareen xarunta golaha shacabka. waxaan ka tacsiyeenayaa geesiyaashii u dhintay difaaca qaranka. si gaar ah waxaan u xusayaa dhamme daahir axmed maxamuud oo isku dhigay gaarigii walxaha qarxa waday una horay naftiisa inuu badbaadiyo xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed. falalkii argagixiso iyo weeraradii ka dhacay oo idil muddooyinka la soo dhaafay waxay ina tusayaan xusuusinayaan inay ciidamadeenu ugu guuleysteen baabi'inta iyo fashalinta hagardaamooyinka cadawga oo hadafkoodu yahay baabi'inta jiritaanka muuqaalka dawladnimo iyo ummadnimo. muddadii 20 bilood ahayd ee aan xilka amniga dalka hayay waxaa shaki ku jirin inay noo qabsoomeen howlo waaweyn oo waxtar u leh amniga iyo xasiloonida dalka, ayadoo xaaladda dhaqaale, siyaasadeed iyo heerka farsamo iyo qalab ee aan ku shaqaynaynaba aysan marnaba u dhigmin ka hortagga qorshayaalka nooca cadow ee aan la dirirayn. haddaba anigoo tixgelinayo xaaladda uu dalku marayo waxaan si rasmi ah u cadeynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka, anigoo rajeynaya in xilkaasi culus ee aan hayay ciddii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed uu garab ku siin doono. gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay'adihii amniga, shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta ee gacan igu siisay gudashada xilkayga muddadii aan xilka hayay. cabdikariin xuseen guleed waa mahadsantihiin.